Shirkad fadhigeedu yahay dalka Sweden ayaa tukayaal u shaqaaleysiisay inay haraadiga sigaarka ka aruuriyaan wadooyinka magaala xeebeedka Sujama ee waddankaasi Sweden. Tukayaasha ayaa waxaa loo tababaray qaadida qashinka iyo geynta halka loogu talagalay. Ujeedada laga leeyahay ayaa ah in la yareeyo qarashka badan ee sanad kasta ku baxa nadiifinta jidadka isla markaana laga qaado xashishka sigaarka. Hay'adaha ka shaqeeya dib u warshadeynta waxyaabaha la tuuro ayaa waxa ay sheegeen in sanad kasta in ka badan 1 bilyan oo haraadiga sigaarka ah looga tago wadooyinka waddankaasi Sweden. Kaliya magaalada Sochama waxaa sanadkii nadiifinta wadooyinkeeda ku bixi jirtay ilaa iyo 20 milyan oo lacagta waddankaasi Swedishka ah. Balse Christian Cather, asaasaha mashruuca nadaafadda, ayaa aaminsan in hal abuurka dukayaasha lagu shaqaaleysiiyey uu badbaadin doono qarashkaasi faraha badan 75%. Wuxuu intaasi ku daray in tukayaasha durbaba ay wax baran og yihiin iyaguna ay isku barteen nadiifinta iyo sidoo kale farsamada qaadida. Wuxuu xusay in kaliya la siiyo cunno iyaguna ay hawsha gutaan si wanaagsan isla markaana ay qaadaan, balse wuxuu qiray in mararka qaar si khalad ah ay u cunaan hashka sigaarka, taa oo la sheegay in dhowr tukayaal ay caafimaad darro ka soo gaartay isla markaana la dhigay goobo lagu xanaaneynayo si loola tacaalo. Waxaa waddankaasi Sweden ku badan dadka isticmaala sigaarka, iyadoo la sheegay in goob walba iyo xilli walba lagu isticmaalo waddankaasi. Waxaana xusid mudan in dukayaashan ay yihiin kuwo tababar la soo siiyey isla markaana yaqaana urka ama shiirka sigaarka, iyagoo tilmaamay in xitaa ay ka soo baxsan karaan meelaha hoose ee la geliyey. Waxaana baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in dukayaasha ay yihiin kuwa ugu fiican ee lagu shaqayn karo.